Horaanta jiilaalkii 1959 koox dhul mareena ah ayaa u ambabaxay safar ay ku sahminayeen cirifka ugu sareeya ee buuraha caanka ah Ural Mountains oo ku yaala galbeedka dalka Ruushka. Dhammaan xubnaha kooxdan oo isugu jiray rag iyo dumar waxay waaye aragnimo fog u lahaayeen safarada dhaadheer iyo keymaha jiqda ah ee gobolkaasi. Saas oo ay tahay safarkan ayaa noqon doona koodii ugu dambeeyay iyo socdaalkoodii geerida. aroortii hore ee maalnimadii 23 Janaayo 1959 kooxdan oo tir ahaan ka kooban 8 rag ah iyo 2 dumar ayaa u kacay xirashada alaabtooda. Guud ahaan waxay isugu jireen arday iyo kuwa dhawaan ka qalin badashay macadka Ural Polytechnic Institute oo socdaalkoodani hirgelinayay. Hogaamiyaha kooxdan wuxuu ahaa Igor Dyatlov, arday macadkan ka barta kulliyadda radio engineering-ka. Wuxuu ahaa nin da'yar ah oo caan ka dhex ah naadiyaasha dhulmareen ee ka jira dugsigan, kuna suntan farsamada gaarka ah iyo aqoonta xeel dheer ee uu lahaa socdaaladan. Waxaa la sheegaa in cid kasta ay jecleed in ay ka mid noqoto kooxda uu isagu wato. Asxaabtiisii fasalka Zineda Kolmogrova iyo Yuri Doroshenko ayaa si gaar ah ugu helinayay socdaalkan. Zineda waxay ahayd gabar aad u firfircoon, shakhsiyad furan, iskuna darsatay hadal macaani iyo qaab sheeko tabin oo xiiso badan oo qof kasta ay ku jecleed. Saadarteed taa waxay keentay in iyadu ay gacanta ku hayso xusuus qorka safarka ee kooxdan. Yuri Doroshenko isagu waxay asxaabtii ugu tilmaami jireen in uu yahay geesiga iyo manaxaha kooxda. Kadib markii uu mid ka mid ah safaradoodii hore ee la soo dhaafay si aan jixinjix ku jirin burus yar ugu ceersaday, dubisikadiis ah ugu soo dhacay meeshii ay hoyga ka dhigteen. Lyudmila Dubnina ama naanisteedu ahayd Lyuda ayaa iyana ahayd gabadha kale ee kooxdan kula jirta Zineda iyo sidoo kale xubinta ugu da'da yar dhammaan kooxda oo kaliya 20 jir ah. Kooxda inteeda kale waxay ahaayeen Yuri Krivonischenko ama loo yaqaano Gyokry, Yuri Yudin, Alexander Kolevatov, Rustem Slobodin, Nikolai Thibault iyo Simeon Zolotayov oo ahaa qofkii ugu dambeeyay ee kooxda lagu soo daro, sidoo kalena ah kan ugu da'da weyn kooxda 37 jir haddii si sugan loo sheego. Sidoo kale Sasha wuxuu ahaa mid ka mid ah barayaasha dhulmareen ee ugu firfircoon deegaanka, taa oo qiimo iyo khibrad ku sii siyaadinaysay kooxda. Guud ahaan xubnihii kooxda safarkan wuxuu u ahaa mid ugu fadhiya qiimo aad u weyn oo lagu tilmaami karo in uu ahaa midka ugu muhiimsan. Xilligan waxay ahaayeen dhulmareena haysta shahaadada darajada 2. Haddii socdaalkan uu ugu soo dhamaado sidii la qorsheeyeyna waxaa lagu balansanaa in la siiyo shahaadada darajada 3 oo ahayd shahaadada dhulmareennimo ee ugu sareysa xilligaasi. Sumcadda ay helayaan ka sokowna waxay kale u ogolaanaysay in iyagu ay dad tababaraan, misna ay noqdaan macallimiin dhulmareen ama masters ku xil dheer hawshan. Marka la eego xilli sanadeedka lagu jiro ee baraf dhulkoo dhan iscamiray, waxaa wadada marinka u ah lagu qiyaasayay in ay noqon doonto midda ugu adag, mid darajada 3. Si gaar ah se safarkan ma ahayn mid kaga duwan socdaaladii hore. Abaare 3 subaxnimo ayay kooxdii ka ambabaxeen magaalada Sverdlovsk iyagoo tareenkoodii uu ku wajahnaa Serov, magaalo caan ku ahayd warshadaha oo 200 mayl kaga beegneed dhanka waqooyi. Aminkii ay cagta saareen wadadii dheereed ee safarkooda, Zina ayaa xasuus qorkii kooxda ku diiwaangelisay erayo ay ku tacbiirinayso dareenka waalida ah ee ay dareemayeen. Waxaan isweydiinayaa waxa inagu soo wajahan socdaalkeenan ma dhici doonaan waxyaalo curdan ah. waa berigii hore ee maalnimadii xigtay 24 Janaayo abaare 7 subaxnimo ayay soo gaareen magaaladii Serov oo weli deegaankeedii uusan si buuxda u soo toosin. Tareenkooda xiga ee ay uga sii gudbayeen magaalada soo aadanna wuxuu balansanaa in uu dhaqaaqi doono abaare xilli fiidkii ah, taa oo ku qasabtay kooxdan in ay maalinka intiisa dhiman ku qaataan magaaladan ay qariibka ku yihiin. Marka la gaaray 6 fiidnimo kooxdii socdaalkan ayaa isku wada shubay tareenkii ay sugayeen oo ku wajahnaa magaalada Ivdel, taa oo ay soo gaari doonaan isla habeenkaasi xilli saqbarkii ah. Kadib Ivdel wuxuu qorshuhu ahaa in ay usii gudbaan degmada Vishay oo dhanka waqooyi kaga beegan magaaladan. Vishay ayaa noqon doonta deegaanka ugu dambeeya ee ay ka heli doonaan wax isgaarsiin ah kahor inta aanay duurkii buuraha qaban raadaarkiina ka qarsoomin. Ugu dambeyn aroortii hore ee maalinkii xigay ayay bas moodilkiisu yahay GAZ 655 ka raaceen magaalada Ivdel iyagoo qabtay dhankii Vishay oo ay tegi doonaan isla maalinkaasi xilli duhur gabaabsigii ah. Vishay waxay xilligan ahayd deegaan shaqo oo ku caan ah soo saarista alwaaxda, waxaana halkan si wanaagsan ugu martisooray agaasimaha xerada shaqaalaha xorta ah oo isagu ay marti u ahaayeen labadii maalin ee xigtay. Sidoo kale waxaa la sheegay inta ay joogeen deegaankan misna sugayeen gaadiidkoodii xigay in ay kooxdan booqasho ugu tageen oday Kenyaqaan ahaa oo ku noolaa waaxda 41 ee ku taalay duleedka shishe ee magaaladan Vishay. Habeenkii xigay intiisa badan waxay ku qaateen baashaal, qaaci ay ku tumanayaan heeso, tixo jacayl iyo sheekooyin ay waqtiga isku dhaafinayaan ilaa laga gaaro xilli dambe habeenkii oo ay daal la wada dhaceen misna u kala hooydeen qololkooda.
subaxii dambe waxay dhammaantood soo wada tooseen iyagoo helay nasiinadii ay u baahnaayeen, diyaarna u ah safarka dheer ee sugaya marka laga reebo Yuri Yudin oo aan si wacan u seexan habeenkaasi. Tan iyo maalinkii la soo dhaafay, Yuri wuxuu la dhibanaa xanuun jismi, wuxuuna subaxan xigay ka waabariistay xanuun ka sii daran kii uu la hoyday xalay. Saa oo ay tahay, haddana waxa ka go'nayd in uu socdaalkani sii wato. Waxa ugu weyn ee ka keenaya madax adeegan sida uu sheegay wuxuu ahaa in uu diidanaa ka haridda asxaabtiisa, si laga yaabo in ay jireen waxyaabo kale oo u qarsanaa, sida qabkiis oo diidanaa haddii uu haro in asxaabtiis ay ku maadeystaan kuna tilmaamaan daciiftinimo, taa oo uusan rabin in dadka kale ay ka aaminaan, gaar ahaan gabdhihii kooxda Zina iyo Lyuda oo la sheegay in uu xoogaha karaash ku ahaa, jacayl hoosaadna uu u hayay. Almuhim 4tii galabnimo ee Janaayo 27deeda kooxdii ayaa ka ambabaxay deegaankan iyagoo gaadiid ahaan u wata faras iyo gaarigiisa. Habeenkii oo dhan waxay ku sii safraayeen qarqarka webiga Lozva oo baraf isku dahaaray dushiisa oo dhan, ilaa subaxii hore ee maalinkii xigay ay tageen deegaan yar oo xilli hore ahayd bar cilmi baaris, balse haddeer la iska cidleeyey. Waxay markiiba alaab dhigteen mid ka mid a guryihii deegaankan oo cidlo ahaa, halkaas oo ay ku nasan doonaan ilaa waqti dhexe ee maalinkaasi laga gaaro. Ka hor inta aysan wadadii qaban mar kale, Yuri Yudin ayaa si xun u tabardhigay. Wuxuu u sii dulqaadan kari waayey xanuunkiisa oo sii darsaday, isagoo ugu dambeyn go'aansaday in uu dib ugu laabto magaaladii ugu dambeysay ee ay ka soo ambabaxeen dhowr maalin ka hor. Sawirkan kuu muuqda waa sawirkii ugu dambeeyey ee laga qaaday xilli uu macsalaamaynayo asxaabtiisa, isagoo aan warna u hayn in go'aankiisan uu noqon doono ka naftiisa ka badbaadiyey halaaga cirib jari doona asxaabtiisa inta kale. Islaab qaadid iyo macsalaameyn dheer kadib, kooxda inteedii kale ee soo hartay oo tiro ahaan 9 ah waxay afka sii saareen jihadii ay haayeen oo socdaalkoodii uu ku wajahnaa. dhowrka maalin ee soo aadanna wuxuu jidmarkoodii ku qotonnaa iska kala gooshida webiyo dhowr ah oo uu ugu horeeyey webiga Lozva, kadibna webiga dacalka ku haya ee Ospia oo ay u raaci doonaan dhanka cirifka sare ee buurta Otterton. Cimiladu waxay ka hooseysay -13 digrii, baraf xoogan oo sita dabaylo adag ayaa jawiga dhan qabsaday. Socdaalkoodan dheer ee ay ku lug marayaan qarqarka webiga Ospia ayaa intiisa badanna wuxuu u noqon doonaa mid fudud kadib markii ay heleen waddo yar oo ay sameeyeen ugaarto deegaankan buuraleyda ah ku nool oo lagu magacaabo Mansi, midaas oo lagu ogaan karay sumadaha ku naqshadeysnaa jirida geedaha saaran dacalka wadadan. waxayna kooxdii sii socdeen ilaa ay ka gaareen qarka hoose ee ay ka bilaabmato buurta Otterton oo ay habeenkaasi ka taagan doonaan teendhadooda kuna hooyan doonaan. maalinkii xigay ee 1 Febraayo kooxdan ayaa sida balanku ahaa u kacday sahminta dhulkan iyagoo casirka maalinkaasi abbaaray 3 galabnimo soo gaari doona bar ay qabiilada deegaankan buuraleyda ah u yaqaanaan buurta geerida oo lagu magacaabo buurta Kholaad Seykhil. 4:58 galabnimo ayay ku dhacday qoraxdii oo habeenkii soo galay, waxayna teendhadoodii ka taagteen qayb ka mid ah dhinacyada buurtan oo dherer ahaan gaaraysay 179 mitir, iyagoo warna aan u hayn musiibada xun ee caawa halkan ku qabsan doona. muddo 15 maalmood ah kadib, ehelada iyo qaraabada kooxda Dyatlov ayaa bilaabay in ay ka warwaraan ilmahooda. labadii toddobaad ee la soo dhaafay, cidna war kama helin Igor ama kooxda inteedii kale. Isjiid dheer kadib, 20 Febraayo, koox mutadawiciin ah oo isugu jira madaxdii iyo ardaydii macadka UBI oo ay weheliyaan xubnooyin kale ayaa u ambabaxay raadintii kooxdan, iyagoo kalsooni weyn ku qaba in nolol ay ku soo heli doonaan asxaabtood. Yuri Belinov iyo Lev Gordo oo ahaa madaxa naadiga isboortiga ee macadka Ural Polytechnic ayaa iyagu magaalada Ivdel kala kacay diyaarad nooceedu yahay Yak 12 si ay isha u mariyaan dhammaan daafaha dhulkan buuraleyda ah, balse cimiladii deegaanka oo aad u xumaatay aawadii waxaa qasab ku noqotay in ay dhammaan kooxdii baadigoobka dib isaga soo laabtaan, hakadna geliyaan sahmintooda. 2 maalmood kadib, 23 Febraayo, ayay mar kale dib ugu laabteen baadigoobka kooxdii Dyatlov, iyagoo kalkan 2 diyaaradood u kala diray dhulka buuraleyda ah ee dhanka bari ka xiga buurta Otterton iyo dhanka kale ee xigta daanta webiyada Lozva iyo Ospia. ugu dambeynna mid ka mid ah diyaaradihii baadigoobka oo dul heehaabaysa webiga Ospia ayaa indhaha ku dhufatay raadad dhinaca shishe usii gudbaya daanta webigan, waxaana markiiba lagu amray mid ka mid ah kooxihii baadigoobka ee lugta in ay bedelaan jidkii ay haayeen una weecdaan dhanka webiga Ospia. mar lasii marayo subaxii xigay kadib saacado badan oo ay kooxdii baadigoobka dabahaayeen raadadkii laga helay webiga, waxay ugu dambeyn ku tageen dhul tirtiran oo saantii ay ka dhamaatay. dabaylaha iyo barafka xoogan ee maalmihii lasoo dhaafay sida xun u dhuftay deegaankan ayaa si sahal ah u tirtiri karay wax waliba. saadarteed, maadaama aysan jirin meel ay uga laabtaan, waxay go'aansadeen in ay sii haayaan qarqarka webigan.
ilaa aakhirkii maalnimada 26 Febraayo ay u suura gashay in ay helaan meeshii ay teendhada ka taagteen Igor iyo kooxdiisa. Waxay dusha ka istaageen muuqaal qof kastaaba uu garan karo marka ugu horeysa ee uu indhaha ku dhufto in ay balo ka dhacday goobtan. Teendhadii oo si xun isugu dunsan, dusheeda sarena isku dahaaray baraf, balse gudaheed ay weli ku jiraan alaabtii kooxdan oo si nidaamsan u kala habaysan, cunto isticmaalkeedii dhex looga tagay iyo kuwo kale oo diyaar u ahaa in la isticmaalo si aan la bilaabin weli, iyo teendhadii laftirkeed oo qaybta gudaha laga soo jeexay dalool weynna uu ku yaalo, taa oo tilmaamaysay in kooxdii ay iyagu jeexeen halkaasna ay ka baxeen, balse sababtu aan weli ma ahayn mid la garan karo. maalinkii xigay xilli ay indhaynayaan dhulka ku hareeraysan goobtan ayay marba mid la ilqaadeen qaar ka mid ah alaabtii ay isticmaalayeen kooxdii Dyatlov oo ku kala fadhisnaa dhulka, jaakado, kaamirooyin ay wateen kooxda, dhalo khamri ah, kabaha loo isticmaalo barafka, tooshkii lagu yaqiinay Igor iyo faashad ama masaar yar. mar la sii marayo dabayaaqadii duhurka ee isla maalinkaas meel 20 yaard kaga beegan xagga hoose ee teendhada ayaa laga helay raadadka 9 qofood oo ku sii wajahnaa dhaadhaca hoose ee keynta. raadadkan ayaa ku bahsanaa ilaa meel nus kilomitir ka durugsan teendhadii, oo markii ay raad qabteen kooxdii baadigoobka ku hagi doonta salka hoose ee geed weyn oo sida muuqatay lagu agshitay dab. geedkan ayaa laamihiisa hoose intooda badan ay go'naayeen, dhaawacyo kalena ka muuqdeen jiridiisa, sida in uu qof isku dayay in uu koro balse ay u suuroobi weysay. in muddo ah markii ay ish la raaceen hareerihii goobtanna mid ka mid a raggii sahanka ku jiray ayaa gacanta ku fiiqay shay ka soo dhex taagan barafka oo haddii ay u soo dhowaadeenba ku noqday jilibka qof bini aadam ah. kadib markii laga dulqaaday barafkii saarnaa, wixii meesha ay ugu tageen ma ahayn oo keliya hal ruux ee waxay heleen meedadka 2 qof oo isgarab jiifa, kuwa oo markii dambe la xaqiijin doono in ay yihiin Yuri Doroshenko iyo Yuri Krivoshchenko oo labadoodiiba u labisnaa qaab aad u liita. xilliga ay dhibaatadan qabsanayso, cimiladu waxay qiyaas joogtay -30 degree, saa oo ay tahay ma xirneen jaakeed qabowga la isaga celiyo. waxay kaloo ahaayeen bilaa surwaal iyo golofis, iyagoo xirnaa oo keliya funaanado khafiif ah, sagsaan yar iyo buumo hoos ka gashi ah. midkood wuxuu u yeelay weji oo inta gacmihiisii isku soo laabtay saartay madaxa sida in uu ka dhigtay barkin oo kale, halka midka kale uu u yaalay dhabar oo xagga sare wejigiisa u jeeda. wuxuu dhaawac ka muuqday afkiisa, halka indhihiisa lala baxay oo ay maqnaayeen. su-aasha keliya ee la isweydiinayay ayaa noqotay, maxaa keeni kara in sidan oo dhan ay uga soo fogaadaan teendhadooda iyagoo sidan xun u labisan? yaase ku galaaftay dhaawacyadan ka muuqda? xilli dambe ee maalinkaasi waxaa sidoo kale la helay meedka Igor Dyatlov iyo Zineda oo iyagu ku kala dhintay meel 90 mitir un isku jirta. dhowr maalmood kadibna waxaa masaafo 275 mitir u jirta Igor iyo Zineda laga helay meydkii Rustim oo ku dugmay baraf dhumuc ahaan gaaraya 30 sentimitir. saddexdan dambe inkastoo weli dharkii ay siteen lagu tilmaamay kuwa sidoo kale liita, haddana uma qaawinin sida labadii hore oo kale. waxaa ka maqnaa dharkoodii ugu muhiimsanaa sida kabihii loogu talagalay qabowga, golofisiyadii iyo dharkii sare ee cuslaa. guud ahaan shantoodaba waxaa lagu tilmaamay in ay u jihaysnaayeen dhankii ay ka jirtay teendhada oo laga yaabay in ay u naqanayeen. inkastoona ay ku kala duwanaayeen dhaawacyo yaryar oo ku yaalay, waxaa baaritaankii lagu sameeyey meedadkooda lagu soo saaray in ay u wada dhinteen hypothermia, xaalad caafimaad oo halis badan, taa oo ka dhalata marka uu jirka qof u lumiyo kuleelkiisa si ka dhaqso badan inta uu soo saaro, midda oo dhalisa in heerkulka jirka hoos uga dhaco -35 degree Celsius oo ah heerkulka loogu talagalay jirka. bilihii xigay ee March iyo April waxaa si joogta ah u sii socday baadigoobkii ilaa ugu dambeyn meedadka 4 dhulmareen ee ka harsanaa kooxda laga soo helay gunta hoose ee tog ku yaala meel 75 mitir u jirta geedkii weynaa. jismiyan 4 dambe ee lasoo helay waxay ahaayeen kuwo si xun u dhibaataysan, maadaama ugu horreynba 2 bilood ay kasoo wareegatay maalinkii ay dhinteen, sidoo kalena ay hoosta uga jireen baraf dhumuc ahaan gaaraya 3 mitir. 3 ka mid ah jismiyan waxaa soo gaaray dhaawac halis ah. Semyon Zolotayov ayaa ahaa kii ugu horreeyey ee baarayaashu ka naxeen. waxaa dhanka midig ee xabadkiisa soo gaaray dhaawac daran oo jebiyey ugu yaraan 5 ka mid a feeraha lafihiisa, keentayna in uu dhiig badan ku furmo gudaha jirkiisa. sidoo kale dhaawacan ka yaraysan ayay ka heleen Nikolai oo jabniin weyn uu ku yaalay madaxiisa, balse midda ugu dhibka badan waxay ahayd Lyudmila. wuxuu iyana si la mid a Semyon dhaawac culus ka soo gaaray dhanka xabadka oo burburiyey ilaa iyo 9 feer oo ka mid a feeraheeda, kuna sababay dhiig bax daran. dhiigaas oo qayb ka mid ah uu ku furmay wadnaheeda qaybta midig. waxaa intaas u weheliyey carabkeedii oo go'naa, kaa oo waxa gooyey jawaab sugan ay u heli waayeen qoladii baarista. waxayna waraaqihii baaritaankan ay ka soo saareen hoosta si fiican uga xariiqeen in dhaawacyadan ay soo gaareen kooxdan iyagoo weli nool oo nafta ay ku jirto. kadib muddo 3 bilood ah oo la waday baaritaankii kiiskan, waxaa ugu dambeyn gunaanad looga dhigay in sababka geeridoodii ka dambeysay ay tahay awood ballaaran oo aan la garanayn, balse ay kooxdan awoodi waayeen in ay iska caabiyaan.
sida ay u arkayeen baariyaashii kiiska, dhaawacyadan ku yaala kooxda ma ahayn kuwo uu qof bini'aadam ah u geysan karo ama ugu yaraan awood gacan bini'aadam keliya ay geysan karto, balse gunaanadkan ma ahayn mid lagu qanco oo ugu yaraan xitaa aan isku dayin jawaab u helidda su'aasha ugu muhiimsan oo ah maxaa keenay in kooxdan ay ka soo cararaan teendhadooda. Inkastoo muddo nus qarni ah kiiskan uu ahaa hal xiraale ay adkaatay xalintiisa, ugu dambeyn waxaan filayaa in aan gacanta ku hayno jawaabta waxa ku dhacay dhalinyaradan. Bal aan isla egno aragtiyihii laga dhiibtay kiiskan. mid ka mid ah aragtiyihii ugu horeeyay ee laga dhiibtay kiiskan ayaa ahaa in kooxdan ay dileen qabiilka Mansi ee duurkan ku noolaa. Cadeymaha ugu waaweyn ee lagu dhisay aragtidan waxay ahaayeen sidaan horey u soo marnay, kooxdii Dyatlov waxay alaab dhigteen oo safarkooda uu ku hakaday buurta Kholat Syakhl ama buurta geerida oo deegaan u ahayd dadkan loo yaqaano Mansi. Waxaana la aaminsanaa in calaamadihii ku sawirnaa geedaha ay kooxdan sawirada ka qaadeen in ay ahaayeen sumado qabiilkan ku calaamadeysteen meelaha ay ka ugaartaan iyo noocyada ugaarta ee laga helo goobtaasi. aaminsan aragtidan ayaa ku faalooday maadaama kooxdii Dyatlov ay cagta geliyeen deegaankan uu qabiilka ootay ahna meel ay reeraha kale ka ilaalsadaan ay sababtay in ay soo weeraraan kooxdan oo sidaasi ay ku dilaan. Cadeen kale oo ra'yigan lagu xoojiyey ayaa ahayd intii lagu jiray baadigoobkii dheeraa ee loogu jiray kooxdii Dyatlov waxaraadka dariiq yar laga helay meel aad ugu dhow halkii ay ka taagneed teendhadooda, qiyaas 60 mitir oo keliya u jirta. Marka la raacay marinkaasi wuxuu si toosa ugu dhacay dhismo yar oo loo yaqaano Mansijum ka oo 1 kiiloomitir dhanka waqooyi bari kaga beegnaa meeshii ay musiibadan ka dhacday. Midan ayaa abuurtay suuragalnimada in ciddii isticmaashay Mansijumkaasi ay la kulmeen kooxdan ama ay jirto fursad ay isku haleeli karaan. Sida ay ku warameen ama laga soo tabiyey shakhsiyaad aqoon u leh qabiilkan oo in muddo ah la deegaan ahaa, dhismaha Mansijum wuxuu ahaa qaab dhismeed loo dhiso allabariga iyo udxiyo bixinta oo ay reerkan ku qali jireen xoolaha iyo dadka. midan ma waxay ka dhigneed in qabiilkii Mansi ay u dileen kooxdan si ay udxiyo uga dhigaan wixii ay caabudayeen, ama waxay u haysteen dad u soo ugaar doontay dhulkooda oo ay ka caroodeen. sidoo kale aragtidan ah in kooxdii Dyatlov ay waxyeelayeen dadkii deegaanka waxaa sii xoojiyey sawirkan oo ahaa mid ka mid ah sawiradii ugu dambeeyey ee ay qaadeen kooxdii Dyatlov habeenkii uu dhibkan ku dhacay maalinkiisa hore. Sawirkan ayaa wuxuu muujinayaa muuqaalka shay madow oo aan la garanaynin waxa uu yahay, ka oo dhexda ka taagan geedaha. Dadka qaarkiina waxay ku qiyaaseen in uu yahay qof ugaarsada ah oo ka mid ah reeraha deegaanka. Sida ay u muuqatana daba socday kooxdan oo laga yaabo in si kedis ah ay ula heleen sawirkan. Haddii si dhow loo eego hablabiska dadka ugaartada ah ee ku nool deegaankan waxaa la tilmaami karaa isku ekaanshiyo oo suuragal ka dhigi kara ra'yigan, balse haddana waxaa jira meelo badan oo gaabis iyo duldaleelo kaga jiraan aragtidan. ugu horeyn qabiilkan Mansi marna ma samayn jirin udxiyeen bini'aadam, human sacrifice wax loo yaqaano, oo inta qof bini'aadam ah la qalo ama la dilo loo udxiyo qaab diimeed. waa mid aysan weligeeda cidna arag, una muuqata in kaliya ay ku shacbaxday dhacdada kiiskan. sida muuqatana xogta ah in ay dad qalaan waxay ku dhisneed macluumaad qaldan iyo hadallada dad ku andacoonaya in ay horay u maqleen shakhsiyaad ay cidan qaleen iyo wax la mid ah. dhanka kale sida caadada ah, Mansijum ma aha dhisme loogu talagalay udxiyo ama xoolo qal. waa qaab dhismeed ka mid ah aqal hooriga iyo mudulka ay adeegsadaan qabiilkan. xitaa haddii aan qaadano in qaar ka mid ah qabiilka Mansi ay soo weerareen kooxdan isla markaana ay ahayd sababta keentay in kooxdii Dyatlov ay qaabkan degdeg ah uga cararaan teendhadooda ilaa heer qaarkood ay ka tageen labiskii muhiimka u ahaa in ay xirtaan, waxay su'aal ka imaanaysaa maxaa shakhsiyaadkii Mansiga ahaa ee soo weeraray kooxdan raadadkood ama saantooda looga heli waayey hareeraha teendhada. calaamadaha raadadkii laga helay agagaarka teendhada sidaan wada ogsoonnahayba waxay ahaayeen oo keliya saanta 9 qofood oo si kooban muujinaya in ay yihiin raadadka ay kooxdii ku reebeen xilligii ay ka baxsanayeen teendhada. dadka qaarkii ayaa soo jeediyey in sababta raadadkii Mansiga looga heli waayey goobtan ay tahay maadaama ay qabiilkan yihiin kuwo aqoon badan u leh deegaankan iyo dhulkan in si fudud ay ku qarin karaan ama ku baabi'in karaan saantooda. haddii midaas ayba suuragal tahay oo haddana la aamino in ay qariyeen saantooda, haddana waxaa in la tilmaamo mudan alaabtii ay wateen kooxdan midna lagama qaadan teendhadii. haddii ay ahaan lahaayeen kabahoodii, dharkoodii, cunadii ay wateen, dhalooyinkii qamriga iyo lacagihii ay siteen oo gaaraya ilaa 2,000 oo rubles, oo runta haddii laga hadlo qiimo aad ugu weyn ugu fadhin lahaa dadkan ku nool duurka oo laga yaabo in lacag u dhiganta aysan helin sanad ama 2 sano oo dhan. muddo 3 toddobaad ah alaabtii ay wateen kooxdii Dyatlov midna lagama taaban. taa oo markaad u fiirsato wax macnaha aan samaynaynin. raggii Mansiga ahaa maxaa keenay in kooxdan ay dilaan, raadadkooda qariyaan, balse ay isaga tagaan wixii ay wateen oo badinkoodu ay u baahnaayeen. saa darteed inkastoo aragtidan ay tahay mid xoogaha ku dhisan caqliyad, dhinac ayaan iska dhigi doonaa.
hadeer waxaa laga yaabaa inaan isweydiino bal waayahee muxuu ahaa sawirkii aan horay usoo aragnay haddii uusan ahayn ugaarsada qabiilkan maansiga ka mid a maxaa lagu fasiri karaa marka hore sawirkan ayaa soo jiitay dareen aad u badan lagana dhiibtay aragtiyo dhowr ah ilaa heer dad badan ay ku tilmaamaan inuu yahay yeri noole supernatural ah jismi weyn dhogor badan shabaha bani'aadam iyo dubbe la isku geeyey kaa oo la sheego inuu ku nool yahay cirifyada buuraha ugu waaweyn sida buurta weyn ee Himalaya waxaad dhihi kartaa ama lagu tilmaami karaa jini duurjoog ah noole inta la og yahay iska qiyaali ah oo ay caada ahaan bulshada isla dhex maraan sheekadiisa inkastoo ra'yigan uu yahay mid xiiso leh haddana marka aan si maskaxaysan u eegno in waxa kooxdan baabi'iyey uu noqdo noolahan inta badan lagu wariyo oo keliya sheeka xariirta uma muuqato mid suuragal ah sidoo kale noolaha sawirkan ka muuqda umaba ekayadi oo tilmaamaha laga haayo ay ka duwan yihiin qaabka sawirka laga arki karo oo inoo muuqda in uu leeyahay gacmo gaaban misna dhuuban halka noolaha yeri lagu tilmaamo in uu leeyahay gacmo dhaadheer oo dhumuc weyn si fudud waxa ka muuqda sawirkan waxaa la dhihi karaa in uu u eg yahay qof bini'aadam ah oo xiran dharkii laga gashanayay qabowga waxayna u badan tahay in uu yahay qof ka tirsan kooxda sababta aan sidaas u leeyahayna waxay tahay maadaama haddii uu qof kale ahaan lahaa sida qof soo weeraray iyaga waxaa hubaal ah in ay ku diiwaangelin lahaayeen buuggoodii xusuus qorka oo ilaa ay ka hurdaan habeenkii uu dhibka ku dhacay ku qoraayeen waxyaabihii ay sameeyeen maalinkaas oo dhan meelna kagama diiwaangelsana buuggaas in lasoo weeraray maalintaas ama ay arkeen wax cabsigeliya ama qof reerihii duurkan ku noolaa ka mid a mid kaloo ka mid a aragtiyada ugu caansan ee ka baxsan waxyaabaha dabiiciga oo laga dhiibtay kiiskan ayaa ahayd in waxa baabi'iyey kooxdan ay ahaayeen aliens noolayaasha la sheego in ay samada sare kasoo degaan cadeymaha ugu waaweyn ee aasaaska looga dhigay aragtidan ayaa ahaa habeenkii ay dhibaatada ku habsatay kooxdii Dyatlov waxa ila wareedyo badan ay sheegeen in ay arkeen shay ifaya oo qaab kubad ahaan u wareegsan ka oo dhex wareegaya samada deegaankaas muddo daqiiqada ah dadka xogtan tabiyey waxay isugu jireen askar ku sugnaa xerooyinkii ay dowladda ku lahayd deegaankan dad ka mid a bulshooyinkii ku noolaa halkan iyo sidoo kale koox geologist ah intaa waxa u sii dheeraa aragtidan sawirkan kani waa sawirkii ugu dambeeyey ee ay kooxda qaadeen habeenkii uu dhibkan ku dhacay sawir u muuqda in laga qaaday shay ifaya xilli habeenkii ah balse intaas wax ka badan oo laga sheegi karo malahan haddii ay dad badan ku tilmaameen in uu yahay sawirka ay kooxdii ka qaadeen wixii cirkaasi kasoo degay ee iftiinkiisa meelo badan laga arkay dhanka kale waxaa la dhihi karaa laga yaabay inuu yahay sawirka tooshkii ay wateen ama dabkii u shidnaa ayaga ama wax kaloo aan la garanayn almuhim haddii laysku soo duduubo inagoon ku fogaanin in noole samada kasoo degay ay dhibaateeyeen kooxdii waxaan isla meel dhihi karnaa sida ay la tahay mid dhalanteedka kaga dhow xaqiiqda dhanka kale waxaa jiray dad ku tilmaamay iftiinkii iyo sheegii dhex guurayay samada habeenkii la waayey kooxdan inuu ahaa gantaal ama dayax gacmeed ay dowladii Soofiyeedka adeegsanayeen midan waa suuragal kuntumiyadii waxay ahayd xilligii ay dowladii Soofiyeedka ku jireen tartankii ugu sareeyay ee kala dhaxeeyay iyaga iyo Mareykanka in ay gantaalo cusub baroobeeyaan ama dayax gacmeedyo diraanna waa mid suuragalnimadeedu aad u sareyso laakiin su'aasha ugu muhiimsan ee aan daba soconaa ma ahan maxay ahaayeen wixii iftiinka watay ee dhex guurayay samada waxa jawaabteeda aan raadinayno misnaan u baahanahay inaan ogaano waa maxaa ku dhacay kooxdan maxay uga soo carareen teendhadooda xitaa haddii dhawaaqa gantaal cabsi geliyey uu ka soo bixiyey teendhadooda maxaa dhaawacyada ku reebay jirkooda suuragal ma ahan in ay ku soo dhacaan goobtii ay ku sugnaayeen kooxdan oo ay waxyeeleeyaan sababtoo ah waa la arki lahaa meel uu waxyeelaystay gantaal ama uu ku burburay dayax gacmeed ugu yaraan xitaa caddayn yar ayaa la arki lahaa midaas oo aan marnaba la helin almuhim sidoo kale midaas iyadana haddaan dhinac iska soo dhigno aragtida ugu fudud ahna tan ugu dhow ee la aamini karo in ay jawaab kaamil u tahay waxa ku dhacay kooxdan ayaa ah avalanche accident dhibaato kaga imaatay hoobad barafeed kusoo dulrugmay ugu horeyn haddii aan eegno halxiraalaha ugu muhiimsan dhacdadan oo ah maxay teendhada uga soo carareen waxaa lagu faaloon karaa in kooxdii oo ku jirta teendhadooda uu kusoo dulrugmay baraf ka soo daatay buurta ay dhinac ka qodeen misna ay teendhadooda ka dhisteen kadibna uu burburiyey teendhadooda kooxdii qaarkoodna uu u geystay dhaawac xun marka ay ku baraarugeen halista ay ku sugnaayeen iyo teendhadii oo ku dul habsatay ayay dhinac ka duleeliyeen teendhada oo qaybta hoose laga jeexay sidaasna ay kaga soo baxeen kadib marka ay dibadda u soo baxeen oo laga yaabo in ay weli ka cabsi qabeen baraf dheeri ah oo buurta ka soo rogma ay dhalisay in ay u sii cararaan qaybta hoose ee degaandega ah xoogaha markii ay ka soo fogaadeen goobtii oo ay gaareen qaybtii hoose misna ay garowsadeen xaaladda ay ku sugan yihiin dhar la'aan qabow aad u daran baraf xun oo weli da'aya oo ay weheliyaan dabeelo xoogan meel cidla ahna ay dhex taagan yihiin waa marka ay go'aansadeen in ay geedkii weynaa ka samaystaan dab oo ay isku kululeeyaan balse ugu dambeyn uu meeshii ku galay melagooda oo heer kulka jirkooda hoos uga dhacay ilaa uu gaaro xadkii geerida wuxuu ahaa halgan geesinimo leh balse ma jirin fursad ay naftooda kaga badbaadiyaan daruuftii ku habsatay
inkastoo aragtidan ay macno u sameynaysay su'aalo badan oo ku saabsanaa dhacdadan, balse haddana si la mida aragtiyihii hore waxaa jiray dulduleelo ay farta ku fiiqeen dad badan. Ugu horreyn haddii aan ku bilowno kuwa fudfudud, saantii iyo raadadkii kooxdan ee laga helay agaarihii teendhada sida laga qiyaas qaatay waxay u muuqdeen raadadka dad caadi ah oo aan dhib haysan. Haddii musiibada baraf ku soo rogmay si xun u dhaawacay qaar ka mida kooxda oo qayb feeraha ka jabnaayeen qaarna madaxa, maxay raadadkooda ugu muuqdaan dad caadi ah oo socda? Raadka qof dhaawac ah oo lugtu sii jiidaya iyo nin caafimaad qaba oo tilaabada dhulka la helaayo way kala duwan yihiin sidaan ognahay. sidoo kale kooxdan waxay ahaayeen dad khibrad leh, ogsoonna dhibaatada qabowga uu u geysan karo ilaa xad. Maxaa keenay marka in ay ka soo cararaan teendhadooda iyagoo dhar la'aan ah oo xitaa aysan dhar yar u soo qaadan? Intaas oo la isku keenay marka xisaabta lagu daro in buurta ay joogeen aysan ahayn meel caan ku ah baraf hoobadka oo aan inta la og yahay lagu arag xilligaasi, su'aalaha ugu badan waxay ka taagnaayeen suuragalnimada in marka horeba ay meeshaasi ka dhacday baraf hoobad awood badan oo dhaawacyadan intan la eg u geysan kara kooxdan. sida caadiga ah baraf hoobadka ama avalanche wax loo yaqaano wuxuu ka dhacaa buuraha xagalkooda uu ka sareeyo 30 ilaa 35 digrii. goobta ay ku tiilay teendhadii kooxdanna waxay ahayd 28 digrii meesha ugu sareysa. saa darteed dad badan ayaa su'aal ka keenay in ayba halkan ka dhici karto baraf hoobad, balse doodahaasi dheer kadib 10 sano ee ugu dambeeyey baaritaano hor leh sameeyey hay'ado badan oo kala madax banaan. sanadii 2015 xiriirka guddiga baarista ee Ruushka ICRF ayaa dib u furay baaritaankii kiiskan muddo 50 sano ah kadib, iyagoona ugu dambeyn 2019 baaritaankoodii kusoo gabagabeeyey in shil ka dhashay baraf kusoo rogmay kooxdan uu ahaa wixii sababay geeridooda. natiijadan ay ku shaaciyeen baaritaankood waxaa markii dambe kasoo horjeestay xafiiska xeer ilaalinta guud ee dalka Raashiya oo iyaguna markooda dib u furay baaritaanka iyo xal u helidda dhacdada kiiskan sanadii 2019 oo ugu dambeyn bishii Luulyo 2020 si lamida iyagana ay u soo baxday isla jawaabtii ICRF ay soo saareen oo ahayd avalanche accident. sidoo kale sanadii 2019 waxaa cilmi baarayaal ka socda dalka Sweden ay sameeyeen baaritaankoodii gooniga ah kadib markii ay ku qanci waayeen natiijadii ay soo saareen ICRF. iyagana ugu dambeyn waxaa u soo baxday in aragtida ugu habboon ay tahay musiibo uga dhalatay kooxdan baraf ku soo rogmay. waxay kaloo cilmi baaristooda ku xuseen oo ay ku burburiyeen mid ka mid ah doodihii lagu celideeyay aragtidan in buurta Kholat Sykhel ay ka dhici karto baraf hoobad oo ay iyagu indhahooda ku arkeen. balse cilmi baarista ugu xeel dheer ee aragtidan sida xoogan u taageeraysa ayaa ah cilmi baaristii ay soo saartay macadka WSL ee cilmi baarista barafyada sanadii 2021. almuhim kadib markii aan si qoto dheer u aqriyay cadeemaha iyo aragtiyaha aadka u tiro badan ee laga bixiyay kiiskan, midan dambe ayaa ah tan aaminaad ugu badan igu abuurtay, misna aan isleeyahay waa midda ugu saxan uguna habboon. adigu maxay kula tahay? igula wadaag fikirkaaga qaybta hoose commentiga.